waxa khadka si toos ah ugu jira gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin oo ku magac dheer Dhoobadaaled gudoomiye soo dhawow waa dhawahay shino waxaan la soconaa in baarlamaanka Puntland caaw xaruntii la soo weeraray khasaare baaxad oo ka dhacay oo naf iyo maalba leh sidee wax u dhaceen waa jirtaa arrintaasi waxaana wax u dhaceen baarlamaanku sidaad ogtihiin wuxuu furmay 26kii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar shaqadiisii caadiga ahayd buuna waday oo u socotay oo kala fadhigii 45aad intaana wuu shaqaynayay maanta u dambaysana wuu shaqaynayay warbixinihii guddiyada soo dhamaaday kadibna tala soo jeedinihii iyo wixii ku jiray oo nuxur baanu ka saaray kadibna guddi baanu u magacaabnay saaka golaha baarlamaanka weeye macnaha markii goluhu meesha isugu tegey waa gartay guddi baarlamaankaanu weydiinay waa kaan sixinay guddidii markaanu magacaabnay hawshiina u diray 10 guddi tala soo jeedintoodu way badatay waxay dhahdeen waqti baan u baahanay waxaanu ku niri waxyaabaha priority-ga ah oo jawaab laga bixin karo oo muhiimadda ah ka soo saara wixii kalena waxaa ka dhigtaan waqtiga dambe kadibna waxay dhahdeen waxaan u baahannahay 3 maalmood oo aan shaqada ku soo qabanno golihii oo jooga baan 3 maalmood ka garanay guddoonkayagii waa ka tashanay waanu la qaadanay iyagaana codsaday goluhuna waa la qaatay sidaasaanu ku daray jimcaha awalba fasax bay ahayd waxay markaa haysteen khamiistoo beriya iyo sabtida iyo axadda isniintana inay keenaan bay balan tahay waa gartay halkaa iyadoo joogta wax kaloo baarlamaanka dhibaato ay kama jirin wax mooshinoo yaalay ma jirin wax ka jiray ma jirin shaqadiisii caadiga ahayd buu watay saasaa lagu kala yimi baarlamaankii caawa fiidkii ayaa la weeraray ilaaladii baarlamaanka joogtana lagu laayay iyo weliba dad shacab ah oo wadooyinka marayay iyo kuwa meherada agtiisa ku haystay yaa weeraray oo ciidanka soo weeraray yay ka tirsanaayeen amarkase yaa soo bixiyay baa isleedahay waxa weerartay xukuumadda waxayna ahaayeen ciidankii dowladda waxaana hogaaminayay Muxyidiin Gacame cidda amarka taliyaha ciidanka guudna waa madaxweynaha ma jirto waxaan madaxweynuhu ogeyn oo la fulin karaa laakiin falka ciidankaasaa fuliyey xoog bay meesha duceynay ku qabsadaan ilaaladii baa markaa iyaduna iska caabin ku samaysay ilaa lama malayn karo ilaaladu uma malayn karto ciidankii dowladda xaruntii baarlamaanka weeraraya oo de wax kale u arkeen iyo cadow kale marka gudoomiye waxa aaminsan tahay weerarkii baarlamaanka lagu soo qaaday oo ay ciidamada dawladdu ay soo qaadeen cidda soo amartay inuu madaxweynaha yahay oo xagga ka soo fulay ba aaminsan tahay saasaan aaminsanahay waayo taliyaha ciidamadoo dhami waa madaxweynaha mana jirto cid amarada intaa leeg xarunta baarlamaanka in la weeraro waxa weeye Muxyidiin Gacameyna kuma dhiisan karo kuma la talaabsan karo haddaanu amar ka haysanin madaxweynaha ama madaxtooyada ama amar ka haysanin marka waxa weeye dowladda soo weerartay xaruntii baarlamaanka Puntlandna xoog inay ku qabsato doonaysa ujeedka ay ka leedahayna ma garanayno wuxuu waxa weeye Puntland waxay leedahay sharciyad bay leedahay nidaam iyo system baa ka jira kaasaa la isu maraa dastuur bay leedahay goluhu xeerosaad buu leeyahay laakiin xoog meeshuu ka yimi iyo siduu ku iman karo ma garanayno Puntland qanuunul qaaba dee baad moodaa hadda inuu ka jiro waxa hadda qaabka ay dowladda dhaqaale u macaamilayso waa xoog arrintaana iyagaa ka dambeeyey shacabka iyagaa laayay inamadii mees joogay qayb bay laayeen aniga gurigaygii xisaar bay ku sameeyeen waxaa ku go'doonsanaa dhowr saacadood ilaa suldaankii beelaha harti suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan iyo odayaal madaxtooyada markaa ugu tagay madaxweynaha waxaan u malaynayaa sababta markay bilaabatay ama ilaba joogeen mise markaasay ka soo baxeen guriga
iyo madaxtooyada way soo dhowyihiin guriga yimaadeen waa xisaar waa lagu xisaaray waa lagu go'doomiyey wayna ku go'doonsan yihiin arrintaasna waxa wada waa dowladda ujeeday ka leedahayna garan mayno wixii nidaam ahaa iyo wixii sharci ahaana xoog bay u bedeshay gudoomiye sidaa sheegayso ma garanaysid sababta ku kaliftay madaxweynaha inuu soo amro in aqalkii baarlamaanka oo isaga lagu doortay la weeraro oo dhiig lagu daadiyo hase ahaatee waxa suuqa ku jirtay inuu jiro khilaaf ba'an oo adiga iyo isaga idin dhaxeeyay ma jira wax khilaafa oo ma jiray oo adoo gudoomiye ah iyo madaxweynaha u dhaxeeya og tahay wax khilaafa oo noo dhaxeeyay iyo meel aan isku qabanay iyo waxaan isugu nimi midna ma jirto madaxweynaha waxa noogu dambeysay maalinkii uu shirku furmayay soomaad garanin maalintii uu shirka furmayay hoolka buuq waa ka dhacay madaxweynuhu dadka waxa ugu wardameysay isagoo hanjabay oo hoolka ka baxay markaa ka bacdi ma kula soo xiriiray oo wax wada hadala ma idin dhex maray labadiina shakhsi ahaan maya ma ila soo xiriirin hoolkana maalintii wuu ka hanjabay oo dadkoo dhan baa arkayay adduunkoo dhan hanjabaadina waxaad moodaa dee inay fushay mar haddii hoolkii xoogba lagu qabsaday sidaan xogta ku hayo haddii xataa ay jirto golayaasha dowladda ama madaxda dowladda wax u dhaxeeya dalku system iyo nidaam buu leeyahay kaasaa la rabaa in laysu maro ka lagu wada hadlayaa inuu kaa noqdo baa la rabaa laakiin maaha waxa lagu wada hadlayaa xoog ma iyo xabad gudoomiye hadda hoolkii waa la soo weeraray ciidankii ilaalada joogtay saan xogta ku hayo waa istifaaceen saacadda ay la hadlayso oo xilliga Soomaaliya labadii habeenimo ay tahay hoolkii saacadan yaa gacanta ku haya hoolkii waxa gacanta ku haya ciidamadii ilaalada ahaa oo hore u joogay laakiin waxa ku hareeraysan oo meel walba laga keenay ciidamadii daraawiishta ee dowladda iyo kuwii booliska oo dhammaan ah حتى كوي فرنها تريبا لغا سو ساري نوعي u yihiin hudna waa la kala waa lagu wareejiyay waxa meesha joogana waa dhowr iyo toban weel waxa 20 gaadhow way marka haddana waxay rabaan inay ku laayaan wiilasha meesha inay ku laayaan bay rabaan oo ay hoolka xoog ku qabtaan marka hore iska caabiyaan marka khasaaruhu intee tira la egyahay khasaaro waa intee dhimasho iyo dhaawac inta og tahay خسارة dhimasho iyo dhaawac anigu qolada xoogga wax ku doonaysay wax ka dhintay warkooda ma hayo laakiin shacabka laba qof ka dhintay oo mid haystay meherad ku qabsan xarunta baarlamaanka iyo qof dumar oo la sheegay labada qof shacab ku dhintay ciidanka ilaalada ahaana hal wiil baa ka dhintay golihiina ilaa iyo hadda xisaab buu ku jiraa ujeedka ay dawladdu ka leedahayna waxa weeye inay xoog intay kula wareegto iyadu ay xoog waxay rabto kaga samayso haddii dawladda ay u suurto gasho inay dhowr iyo tobanka wiil oo hoolka ku jira ay ka saarto ama xoog ha uga saarto ama xeelad kale ha uga saarto oo ay halkaa shir ku qabato oo tiraahdo baarlamaanka intay fariisiiso gudoomiyay xilka waa ka qaadnay sida hadda aan xanta ku hayo mooshin ay wadaan oo dabada ka riixayaan baa jira ma ku qanci doontaa wixii halkaa ka soo baxa adigu sharciyada sima waafaqsanaanayaan maya aniga waxaan ku imi sifa sharciya kursiga golahaana ii doortay sida madaxweynaha loo doortay baa laygu doortay sifa sharciya baan kaga tagi karaa waxa aan xilka ku waayi karaana way qoran yihiin dastuurkana way ku qoran yihiin xeeroosaadkana way ku qoran yihiin xilka intaasaan ku waayi karaa laakiin xoog kuma waayi karo wax kastay dhoodhoobaanna sharci ma noqon doonaan gudoomiyii sharciga waa aniga sifa sharciyaan ku tegi karaa sifa sharciyaan ku imid sifa sharciyaan ku tegi karaa mana aqoonsan doono waana dhoobdhoob waana wax xildhibaanadana lagu khasbayaa waxa la adeegsanayaa waa hantidii ummadda lacag baa la qaybinayay oo caawa la qaybinayaa hantidii ummadda aan la bixinay wadooyinkii dhulku waa googaan yahay
dadku waa dayacan yahay meel walba adeegyadii bulshadu waa wada dayacan yihiin hantidii ummadda laga qaadana waxaa lagu bixinayaa waxa weeye waxyaabaha kuu sheegaya iyo waxaan waxba ka jirin sharcina aan ahayn gudoomiye khasaaraha hadda halkaa ku dhashay oo nafta iyo maalka iyo dhaawaca iyo dhimashada leh yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya bay kula tahay mas-uuliyaddeeda waa caddahay ciddii soo weerartay dowladda xoog inay kula wareegto golaha baarlamaanka ama xarunta baarlamaanka Puntland ayaa iska leh mas-uuliyadda iyadaa leh dowladdaa leh iyadaa weerarka soo weerartay iyadaa xabadda bilowday iyadaa xoog ku timi meesha waayo ma dowladda weliba madaxweynaha amarkaa leh ma dowladda laga ilaalin karaa xarunta baarlamaanka maxayse ku qabsan kartaa dowladda xarunta baarlamaanka qaranka gudoomiye adigoo mahadsan oo aan kaaga mahad celinayo waqtigaaga qaaliga ah Puntland waxay caan ku ahayd in ay odayaasha dhaqanku marka xaaladda tan oo kale ay timaado ay dhex galaan suldaankii beesha warsangeli suldaan Siciid baan waxaan ka warqabaa inuu baran ka yimi oo arintaasi u dhexdhexaadiyay oo madaxweynaha ay caaw xataa isarkeen islaanka ciise maxamuud baa ku jiray isma kale taa iyaguna ku jiro boosas ka yimi sida ugaaska dishiishe beeldaaja cali Salmaan waantii ismadaas wadeen ma shaqayn weyday xageesa ku dameysay iyadu شنو وان هرتا waxay sahaynaya waan kuu sheegay ismaduna waxay u baahan yihiin horta marka hore in la aqoonsan yahay inay isma yihiin oo xurmad yihiin oo dadka odayaashooda yihiin oo ugu sarreeyaan iyagu waxa muuqata taas inaanay meesha oolin dowladda wax ismadu xurmaa aanay ka lahayn xukuumadda wax xurmaa aanay ka lahayn ismadu ayaa cad oo muuqata waxaan daliilkuga suldaankii iyo odayaashii oo madaxtooyada ama markaa ka soo baxay ama joogaba xabadda la bilaabay oo ka hadlaya arrimahaas oo doonaya sulx iyo wanaag inay ka galaan ma jirtaa suldaanka in madaxweynuhu sudaanka beesha warsangeli inuu madaxweynuhu ka warwareegay inuu arko sudaanka waa loo yeeray madaxweynaha u yeeray ceergaabaa looga yeeray markii uu yimina kulankiisii wuu ka warwareegay madaxweynuhu sudaanka wuxuu joogaa habeenkii afraad iyo caawa u ahayd caawayna kulmeen intii horeysana wuu ka warwareegayey weliba haddana erguu kula kulmay waa laga ergeeyey yaa ka ergeeyey oo yiri qaabil suldaankii warsangeli baa magaalada ku joogay islaan ciise ka ergeeyey oo arintaa ka xumaaday oo markaa ku soo celiyay suldaanka hadda hadday suldaanka iyo madaxweynuhu maanta is arkeen maxay ka wada hadleen inta xogta ka hayso mase is afkarteen mise waxay ku kala tageen qubiqa wallahi sino arintaas anigu de odayaasha lama joogin xilligii taariikhkeeda suuraysanaana waa xilliga xabaddu bilaabatay haddii saddex wanaag ku kulmeen waxay la tahay dee xabadii kama dambayseen hadday wanaag kulmaan iyo haddaan is afgaranba marna xabadii wax saxa ma ahayn laakiin waxay kugu caddaynaysaa in madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda wax u dhoobnaaya waxaa kaliya u dhoobana ay ahayd kursiga anigu aan fadhiyo inaan banneeyo aan sharciyadda ku joogo oo ay keensadaan qof kaloo gacan ku ribis ah oo iyagu ay keensadaan aniga waa lay doortay laakiin mid ay iyagu keenaan gudoomiye waxa igu maqaalo ah in koox Aranjan la yiraahdo oo madaxweynaha inuu doorashada ku soo baxo gacan weyn ku lahayd ay iyagu ahaayeen cidii khilaafku in ka dhex qarxay ee aysan xagga madaxweynaha iyo adiga wax weyn oo idin dhaxaya aysan jirin arinta maxaa ka jira waa saxiix arintaasi wax anaga madaxweynaha hore aan sheegay waxna dhex maray iyo waxaan isku qabanay iyo meel aan ku kala tagnay midna ma jirto nimankaas
ayaa suuqa ku tiro lahaa ninka gudoomiyaha meeshaan ka saarayna maxaa marka isugu timaadeen iyaga markii la yiri maxaa lagu ma garanayo waxaan isugu ma jirto I don't know malaha waxay u arkeen masaalixdooda inaanay iga socon karin waxa masaalixda ay kala yihiin dawladda ay dhisteen inaanay iga socon karin bay malaha u arkeen waxaana ugu weyn oo hadda iyaga laga sheegay 2020 oo aan wax waraba ka hayn anigu iyo wax tala midna aan ka ogeyn oo aan waqtigiisuba joogin bay waxyaabahaas iyo wax la mid ah sheegi jiray runtii ninka meesha waan ka saaraynaa 2020 marka leedahay waxa ula jeedaa doorashada soo socota ee Soomaaliya miyaa ula jeedaa waxay ka cabsi qabeen in saameyn ku yeelato oo xildhibaanada warsangeliso xulidooda iyo tala ku yeelato ma intaas ka cabsanayeen wallahi ma garan karo waxaan fahmi karin waxaan garanayn in la igu diro hatta lama yaqaan doorashada iman doonta qaabka Soomaalidu wali isla fahmin qaabka doorashada loo dhigayo iyo qaabka la isku dooranayo way qof iyo cod way adag tahay inay dhacdo xilliga la marayo marka maba la isla fahmin inaan tala ku yeelan karo iyo inaan ku yeelan karin iyo lama gaarinba ma jirtaa waxyaabo waxa jira ay iyagu ku doodayeen oo kugu eedeynayeen oo ah inaad xiriir hoose la leedahay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waa dawladdii Soomaaliyeed waa qarannimadii ummadan waa mabaadi'dii Puntland lagu dhisay ka mid ahay dawladda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed shaqa anigu aanu hayay ma jirin laakiin inay waxaan aqoonsanahay inay dawladdii Soomaaliyeed iyo saraftii iyo qarannimadii Soomaaliyeed ay tahay saasaan aaminsanahay waana inta hadda kiis ka jira haddii ay dhacdo in sifo bila sharciya xukunka lagaga qaado oo lagu dhawaaqo iyadoo haddaba sharcigii laga talaabsaday intaan aragno oo meeshii dhiig yaalo gobolada ay ka soo jeedo maxaan ku raahdaa Sanaag ama beesha warsangeli ay wax badan maxaan ku raahdaa hore Puntland uga tabanaysay beesha dhulbahanto iyada la duruufa iyada laftigeedu sidaas la mid ah tabashooyin badan maamulka ay jireen ma kula tahay marka in la joogo xilligii dadkaasi ay ayahooda ka tashan lahaayeen intii garoowe waxa weeye qaarkoodna waxa weeye lagu layn lahaa qaarkoodna ismadana lagu ahaamin lahaa waa la joogaa waayo wayna imanaysaa waayo Puntland la wada leeyahay inaanay jirin baa caddaatay waxa la kala sheegtay caasimadii oo reer sheegtay oo madaxdii dawladda iyo mas'uuliyiintii lagu caayay ka hadlayay sharciyada Puntland baa reer sheegtay oo hadda dadka ugu xoog sheeganaya oo waxa weeye Puntland marka la wada leeyahay ma jirto meesha way ka baxday dadku aayahooda ka tashan doonaan inta la helayo Puntland la wada leeyahay hadii la yiraahdo waxa weeye waa wax cad oo muuqda hadda waayahay waxa sheegaysaa in caasimadii dadka laga sheegtay maanta saan maqlay ciidamada ku soo weeraray hal reer bay u badnaayeen taliyaashooda oo kale ciidamada weeraray hoolka baarlamaanka marka beesha caasimada degan arintii gogashii ay dhigeen reer Puntland oo dhan u dhigeen caasimada ahayd oo dhexdhexaadnimada ahayd ma waxa aaminsan tahay inay ku talax tageen way ku talax tageen meesna way ka baxday waayo caasimadu waa meel la wadaago la wada leeyahay meel reer sheegan kara maaha meel ummadda lagu aflagaadeyn kara maaha meel xoog la isugu sheegin karo oo hay'adaha dawladda iyo institutionada kala madax bannaan isku xoogi karaan maaha ma fahamtay caasimadii mana dhacdo waxay ku tusinaysaa tan caawa dhacday iyo tii maalintii hore dhacday oo maxay ahayd inay gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo odayaasha la midka ay ku hadlayeen oo ku aflagaadeynayaan xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta dalka inay reernimo ahayd tan caawa dhacdana inay reernimo tahay waayo haddii nidaam iyo sharci jiro iyo system weerarna ma dhaceen maxay ahayd ciidan isku qabanayna meel ma tageen ma fahamtay waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusinayaan Puntland wadahaansihii inay ka baxday wada khaldanna inay hayso
wadadii waagi hore lagu dhisana inay ka baydhay ummadda wax u diidayaan ma jiraan marka inay aayahooda ka tusadaan nin taliye ah oo suu sheegay magaalada Garowe ka soo jeeda wuxuu kugu eedeeyay inaa howlka baarlamaanka gelisay ciidamo maleeshiyada oo cid ay yihiin aan la garanayn eeda maxaa ugu jawaabaysaa oo ay halka kula dagaalameen oo iyagu ciidankii ay la dagaalamayeen oo rasaasta ku soo furay ay ahaayeen ciidamo waxay yihiin aan la garanayn oo adigu meesha ageysatay wax Allah wax ka jira ma jiraan ciidamada meesha ciidamada ilaalada baarlamaanka ay ahaayeen ciidanka anaga staafkayga ahaabay ahaayeen ciidanka madaxtooyada baa ku jiray oo madaxweyne ku-xigeenka aan ku codsanay oo noo soo diray oo hal gaari ahaay ciidankii saaraa iyo gaarigaygii aniga ka ilaalin jiray baa yaalay ciidamo meel ka yimina ma ahayn ciidamo aan la garanayna ma ahayn wuu garanayay xataa ninka weerarayay u tegaya sarkaalka wuu garanayay waxba kama jiraan mas-uuliyadda la sheegaya مسؤوليات ولا يقان عدي وحقيقتها مسؤوليات لو إحنا ساكت ما عينك بعرنا كتشوجا بعد ويرري وتقول مال علي بس وصل على الصور وعويس جوابته وصل على الصور عدي الصور تبع وحي هالكا كدعي مسؤوليات هذا إسكال آخرية دون gudoomiye waxa jirtay beesha ka soo jeedo Warsangeli in muddadii dhowrkii bilood ugu dambeysay ay Puntland aad u soo galeen oo Soomaaliland oo markii hore dadka qaarkii inkasta aysan badnayn oo beesha kamida lagu xalinayay inay ka tirsan yihiin ay ka soo goosteen khaasatan ciidamo fara badan arinta oo lagu amaanay inaad door weyn ka lahayd oo xataa ciidamada dhowr jeer booqatay arintaas maxay u dhimi kartaa arintan Garowe ka dhacday caawa dadaaladii gobolka si buuxda loogu soo gacan gelinayay iyadoo madaxweynuhu xataa maalintii baarlamaanka uu ka sheegay oo wax qabadkii ugu muhiimsanaa oo uu ku faanayay ay ahayd marka arintan hadda ka dhacday baarlamaankan iyo dadkan la laayay ma kula tahay inay dhabarjab ku noqonayso gobolkii Sanaag iyo beesha Warsangeli Puntland ku soo dabaalideedii oo ay is-aaminaadii ay meesha ka baxayso is-aaminaadii meesha way ka baxday waa run ciidamada soo wareegay iyo sida beeshaasi hadda ay Puntland ugu heelanayd waxa weeye waa wax la wada ogyahay oo qabanay laakiin tani way dhaawacaysaa waa tan kalena waa runtaa gacan baan ku lahaa ciidamada ugu badan oo kunka ku dhow anaa sabab u ahaa inay yimaadaan gudoomiyaha gobolka anaa sabab u ahaa waxa weeye gacanta ugu weyn anaa lahaa waxaan ka shaqaynayaa wanaagga Puntland iyo sidii Puntland meel u wada aadi lahayd iyo Puntland la wada leeyahay ayay ahayd laakiin waqti kale loo isticmaalay waana lagu noqonayaa dadkaana dhib badan bay u geysanaysaa ama moral ha noqoto ama waxay ahaydeen wada lahaansho waxaan wada lahaan noqoto ama shaqadii wanaagsaneed ay hayeen ha noqotee wuxuu dhaawacna way u geysanaysaa dibna waa lagu noqonayaa haddii la yiraahdo okay gudoomiye gabagabadii mas'uuliyiintii lagu gafay iyo odayaashii meel ka dhaca lagu sameeyay iyo sharaf darrada gudoomiye gabagabadii baan soo gaarayna waraysiga xilli dambe ku tahay walow aan filayo caawa in saa sheegayso lagu hareeraysan yahay hurdo aysan ku online maxaa ugu baaqaysaa shacabka reer Puntland gudoomiyaha ugu ahayd golihii wakiilada iyaga ka wakiilka ahaa beesha caalamka hallo maxaa ugu baaqaysaa gabagabadii shacabka Puntland golaha wakiilada iyaga ka wakiilka ahaa gudoomiyaha u ahayd ama u tahay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa halka wixii ka dhacay oo xoog iyo weerar ahaa waxaan inta baarlamaanka lagula wareegayay la doonaya in lagula wareego inay tahay waxaan systemka iyo nidaamka dawliga meel kaga jira beesha caalamkuna waxa caawa dhacday iyo waxyaabaha dambe oo la rabo in la malmaluuqo dhici doona midna inaanay aqoonsanin laguna xisaabtamo ciddigiisa shacabka Puntland waxaa leh shacabka Puntland anigu idinkaan idin matelayay idinkaan idin shaqaynayay mana waxaan rajaynayaa shaqada aan idin hayay inaan saluugsanayn
dantiina ina ahayd waxaan ka hadlayay والله وحالة توسية وحالة صعب شعب باسين dalkan idinka iskale rasuulka waxa idinku qornaa wada ugu sareysa dadkan waa alweyne ka shaqo waa shacabka doonis badeediin dantiina inaad isu taagtaan wadada Puntland qaabka loo wadana inaad ka soo horjeesataan oo waxa weeye aad maxay ka dhiididaan ayaan shacabkana ugu baaqaya wax sax ah iyo Puntland la wadanayahayna raadiyo si ummadii Puntland la isugu hayo maxay oo aanay u kala taginin una jirto aad iyo aad baa u mahadsan tahay waa gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland ama gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadaareed oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Garowe isla markaana gurigiisa ciidamo ka tirsan maamulkaasi ay ku hareeraysan yihiin isla markaana xaruntii baarlamaanka iyadana sida loogu hareeraysan yahay caawa la weeraray isla markaana dad shacab ah iyo ciidan intaba lagu dilay waxa waraysiga ka qaadayay anigoo ah Shiino Culay tan iyo inta barnaamijka la mid ku kulmi doono waxaynu ku dhaafayaa nabad diino